مرشح مدحوينه عرو waxa uu isu dhigay siyaasi cabqari ah oo miis isugu keeni kara mucaarad siyaasadda safkaga wada jira asi aan isku wadiiqa ahayn mise ururka ka haya hirinkii siyaasadooda ku hana qaadi lahayd u arka inuu ku jiro xisbiga wadani ee maanta ay isbahaysiga la sameeyeen midba warbixintan waxaynu ku lafaguri doonaa muxuu noqon karaa nooca isbahaysi ay samaysan karaan ururka ka haya xisbiga wadani oo maanta kulankoodii koobaad uga furmay Hargeysa aqalgalka siyaasadeed ee labadan dhinac dhaxmari kara waxa uu haystaa hal lubsana weyne oo midayn kara kaas oo ah in musharax Muuse Biixi Cabdi aanu ku guuleysan doorashada madaxweynaha iyo in xisbiga kulmiye aanu ku soo bixin doorashada ururada tan oo ka dhigan in xisbiga kulmiye ee talada haya 14 sano laga takhaluso si la mid ah sidii xisbiga muxaafidka ahaa ee Ingiriiska looga adkaaday kadib 14 sano oo xidhiidh ah oo dalkaasi uu ka arriminayay marka laga taga dhufsanaha waxa adag isbahaysi ay labadan dhinac yeeshaan maadaama ay leeyihiin isdiidooyin siyaasi ah oo sida ay isu waafaqaan adag tahay sida ay sheegaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta labada dhinac iyo nimanka urdooxa siyaasadda Soomaaliland isbahaysi dhinacyadan ay samaystaan waxa uu noqon karaa saddex nooc oo kaliya in ururka ka uu xisbiga wadani iyo musharaxiisa ka taageero doorashada madaxweynaha nooca isbahaysi waxa uu labtab siyaasadeed ku yahay ururka ka iyo hogaamiyahooda Maxamuud Xaashi waxa uu sadqayn karaa hankii ururkiisa iyo kii uu ku doonayay inuu ku gaaro hogaaminta dalka haddii noocan ay qaataan waxa soo idlaan karta maalmihii jookarnimada siyaasadda taageerayaashiisa qaar ayaa qaba inuu hogaamiyahoodu u bareeray hadeynta hilinkii kaliya ee siyaasadda uga bannaanaa haddii uu noocan isbahaysi la sameeyo xisbiga wadani Maxamuud waxa uu caawiye ka ahaa laba guulood oo kulmiye madaxweyne ku gaadhay kahorka kuwaas oo ka mid ahaa sooyaalkiisa togan ee siyaasadda halka bogoga kale ee taariikhdiisa siyaasadeed ay ku santan yihiin la qabooyin u gaara erga culus oo kulmiye igama daba iman laakiin ana isu soo ladxay waxaan garwaaqsaday xeradayda iyo xisbiga waxay dhamaynaan jirin qorweynta taageersan ayaa qaarkood waxa ay qabaan in talaabadan haddii aan u tooghayn ay noqon karto la qaba saddexaad oo siyaasadiisa gaadha nooca labaad ee isbahaysiga waa in ururka ka cirra uu ka taageero doorashada madaxweynaha isla cirana uu ka taageero ururka ka sida uu xisbi u noqon lahaa noocan isbahaysi waa mid labada dhinacba faa'iido leh laakiin waxa uu wataa caqabadiisa 90 digrii ayuuna wareejin karaa codadka iyo sida uu ku tagi karo kursiga madaxweynaha musharax cirro wuxuu dhabartab ku noqon karaa xisbiga uu musharaxa u yahay ee muddada dheerna uu soo hogaaminayay wuxuu kala qaybin karaa siyaasiyiinta iyo hoggaanka gudaha ee xisbiga oo qaarkood noocan isbahaysi u arka talaabo khatar gelin karta in xisbigu uu soo dhaafo tartanka ururada maadaama uu hogaamiyahoodii koobaad uu ka ololeynayo taas oo noqonaysa halkii maamada Soomaaliyeed lagu oran jiray raqayninkii lahaa dabada haya ma kacdo ragga aanu go'aankan u cuntamayn waxa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xasan oo siyaasad ahaan lagu sadeeyay Firadheeri madaxweynaha iyo gudoomiyaha hadda Allah wada barakaado dhinaca kale siyaasiyiin iyo rag kale oo miisaan kule gudaha xisbiga ayaa noocan isbahaysi u arka mid humanti ah oo ku dhisan wax isdhaafsi nooca saddexaad waa in labada ururba la isdhinac wado cirana uu noqdo madaxweyne la wada dhiso isagoo ciyaaraya door siyaasi cabqari ah noocan isbahaysi waa mid ku xiran musharax cirro sida uu isu waafajiyay labada hoggaan ee wadani iyo ka oo ay kala hogaaminayaan laba nin oo saameyn siyaasadeed leh damac isku mid ahna wada higsanaya kana soo jeeda hal deegaan haddii ay noqoto inay cirro wada dhisaanna hal ardaa codka uga wada raadinaya nooca uu noqdoba isbahaysigu waxaa maanta loo saaray guddi farsamo kuwaas oo ka soo shaqaynaya farsamadiisa lagamana hordhici karo qodobada iyo qaabka uu soo baxayo